Maraykanku waxa uu doonayaa inuu qayb ahaan qaato xuduudaha Yurub ee macdanta hodanka ka ah, halka Ruushku uu dhawaan ku goodiyay inuu Yurub ku weerari doono hubkiisa nukliyeerka ah haddii guul looga sheegto dagaalka Ukraine. Tani waxa ay ka dhigan tahay inay Yurub ku jirto mid ahaan waqtiyadii ugu adkaa taariikhda. Laba dacood oo quwad ciidan leh ayay qaaradani ka wajahaysaa xiisado aan dhammaadkooda la odorosi karin, kuwa oo labadaba doonistoodu ku qotonto arrimo xuduudeed, quudaraynta khayraadyo dabiici ah iyo dano siyaasi ah oo docda hogaaminta dunida quseeya. Marxaladda ugu adag ee haatan Yurub wajahayso waa maaraynta doonista Maraykanka ee jasiiradda Greenland, xuduud Yurub ka tirsan siyaasad ahaan oo ay doonayso inay qaadato xubin ka mid ah gaashaanbuurta NATO, saaxiib damacsan inuu jaalashiisa kale ka boobo xaduleed macdani ka buuxdo. Xaaladda Yurub ku jahwareersan tahay tan culnimo iyo jaalnimo labada ay ku wajihi karto. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump waxa uu ku celceliyay in qaadashada Maraykanka ee Greenland lagama maarmaan tahay, aysan ka kaaftoomi doonin oo ay ilaalinta xadadka Maraykanka muhiim u tahay. Taas waxaa garab socda sidaanu horey u warinay inuu Maraykanku doonayo mulkiyadda macdanaha naadirka ah ee jasiiraddan. Washington waxay si aan gabasho lahayn u sheegtay inay si dhaqso leh Greenland xoog ama xeelad midkood ugu qaadan doonto. Waxa xeeladaysiga ay doonayso inay jasiiraddan ku mulkido qayb ka ah iibsashada rabitaanka dadka Greenland. Tallaabadaas oo Denmark jasiiraddan lahaanshaheeda sheegata ay ku tilmaantay mid aan suurtagal ahayn, iyadoo boqortooyada waqooyiga Yurub ku taal ay sheegtay inaan Greenland iyo dadkeeda midkoodna iib ahayn. Halka marka ay joogto Yurub waxa ay bilowday u diyaargarowga tallaabada xigta ee la filayo inuu Maraykanku ku wajihi doono qaadashada jasiiraddan, taas oo ah quwad military. Saacadihii ina dhaafay waxa wadamada NATO ku midaysan ay qayb ahaan ciidamo aan tiro badnayn ku daabuleen Greenland. Ciidamadaas oo la sheegay inay xoojinayaan howlgalka magaciisa difaaca loogu yeeray ee Denmark doonayso inay Maraykanka kaga hor istaagto xoog ku qaadashada jasiiraddan. Wadamada Germany, Sweden, France, Norway, Netherlands iyo Finland ayaa dhammaantood xaqiijiyay inay kumanaan askari oo hor leh ku kordhin doonaan cutubyada kooban hordhaca ah ee ay haatan u direen Greenland. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo shalay diray cutubyadii ugu horreeyay ciidamadiisa ee howlgalkan qaybta ka noqonaya ayaa sheegay inay ciidamo cirka, dhulka iyo baddaba ah ku xoojin doonaan howlgalka difaaca jasiiraddan. Wuxuu yiri gulufka Maraykanka ee Greenland wuxuu kicin doonaa mawjadaan dhammaadkeeda la saadaalin karin. Maraykanku weli ma bilaabin dhaqdhaqaaq ciidan oo tusaya inuu cudud military ku wajahayo qadiyaddan. 150 askari oo kaliya ayaana Maraykanka ka jooga jasiiraddan haatan, kuwa oo ku sugan fariisinka dalkani ku leeyahay waqooyiga Greenland. Ugu dambeyn waxay u muuqataa in Yurub si rasmi ah isugu diyaarinayso dagaal dhulboob oo uga yimaada xubinta ugu quwadda badan midowgooda NATO. Haddii taasi dhacdana waxa ay noqon doontaa Maraykanka oo doca iyo 31 dal ee kale NATO ku midaysan oo Maraykanka guluf kala hortaga, taas oo ka dhigan dagaalkii ugu cuslaa ee galbeedka ka qarxa tan iyo kii labaad ee adduunka.